السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عن إذا الهانتين بكسو دوادا W3 tag فيديو maanta wuxuu ku saabsan yahay oo aan ku qaadan doonaa HTML formatting ama qaabka loo format gareeyo qoraaladii HTML-ka ah ee website-kaaga aad ku soo dhistay ama any paragraph oo website-kaaga ku jiray iyadoo ujeedadu tahay for better look and feel in qoraaladii website-ka ku jiray aad qurxiso ama dareenka ay xambaarsan yihiin aad muujiso. waxa kale oo qaadan doonaa background color-ka sida loo bedelo farta sida looga dhigo bold sida looga dhigo italic ama far jiifta sida loo highlight gareeyo orange ama qoraal highlight loo mariyo sida qoraalada qaar ama xarfaha qaar loo delete gareeyo kelmadaha qaarna loogu bedelo haddii aad isticmaasho ama hore usoo isticmaashay Microsoft Word ama word processor intaasiba waxaan hubaa inay caan yihiin oo aad taqaano markaad CV-ga qoranayso ama application-ka aad qoran jirtay intaba waa la sameeyaa. marka website HTML lagu dhisayna waa baahi mar walba timaado loo baahdo marka let's do it. waxaad tagtaa code editor-keeni. The first step aan sameynaa waxa weeye website-keeni ama page-keeni aanu HTML-ka kusoo dhisnay waxaynu ka bedelaynaa color-ka. marka color-ka marka HTML lagu bedelayo waxaa la tagaa halka ugu horeysa body-ga ugu horeysa. body-gu wuxuu leeyahay opening tag iyo closing tag. marka opening tag uu body-ga ku furmo ayaynu tagaynaa waxaanu bedelaynaa waa background-ka color-kiisa. marka waxaad tagaysaa opening tag-ga uu body-ga ku furmo waa halka ugu horeysa waa halkaas. code editor-kaaga kor bax oo raadi waxaad ku qortaa style hadaad doonto space dheh style markaa qortaa saa kuu soo saaraya ku dhufo intan macnaheedu waxay body-ga ayaan rabaa inaan ka bedelo style-ka. style-kana maxaad ka bedelaysaa background color-kan bedelayaa. marka halkaa dhexna waxaad ku qoraysaa background markaad qorto wuxuu kuu soo saarayaa optionno badan sababtoo ah background-ka waxyaaba badan baa laga bedelaa. marka hoos u deg waxaad tagtaa halkay ku qoran tahay background color ilaa uu kuu soo baxaya color background color kuwa kale ha ku qaldamin waa halkaas. background color ku dhufo intan macnaheeduna waxa weeye waxaan rabaa background-ka inaan color-ka ka bedelo. marka color-ka marka la bedelayo qofka aan developer-ka ahayn ama designer-ka ahayn colorada caadiga qofka caadiga maskaxdaada kusoo degdegaya waxa u badan waa red white blue and black. marka bal blue aan gelino saa u aragtaan farqiga isbedelka ay sameynayo. blue aan ku qoro blue calaamada semicolon-kana raaci ka save dheh ama control S page-keeni tag refresh dheh waa aragtaan in page-keena color-kii oo dhan uu blue isu bedelay. waana dareemi kartaa inaanay professional ahayn ama isha bini'aadanka aan u fiicnayn kalarada noocana ee dadku ay wada yaqaanaan. code editor-keena ku noqo kalarada dhowr nooc baa loo geliyaa inaad kalarka magaciisa tooska aad u qorto sida imika aynu sameynay blue aad qorto ama kalar kale waxa loo yaqaano RGB oo ayana kamid ah qayb kalarada kamid ah iyo wax loo yaqaano color hex code. marka color hex code-ka badan kala isticmaala oo macnaheedu yahay kalarka aad isticmaalayso numberkiisa aad gelinaysaa halkan. tusaale ahaan guryaha marka la rinjiyeynayo ama dadka rinjiilayaasha ah qasacada uu ku jiro rinjigu ama weelka rinjigu uu ku jiro haddaad aragto akhrido color waliba wuxuu leeyahay number u gaala. marka waxaa la yidhaha color hex code. marka colorka hex code-kiisa aad halkan gelinaysaa. su-aashu waxay noqon kartaa colorka numberkiisa sideen ku heli karaa ama kalaro kala duwan oo aan ka heli karo. ka next step aynu sameynayna waxa weeye inaan ku tuso sidaad u raadsan lahayd aad u heli lahayd kalarada numberadooda iyo kalaro fara badan oo kala duwan. marka kan bluega naga masax save-na dheh page-keena ku noqo refresh dheh si background-keena hore inoogu soo noqdo. marka browser-kaaga tag Google ama kolba wixii aad isticmaasho waxaad ku qortaa ama aad tagtaa website-ka la yidhaahdo color hunt then enter dheh option-ka kuugu horreeya kuu soo baxa ku dhufo. marka website-ku ku geenayaa markiiba wajahada koowaad waxaad arki kartaa in markiiba kalaro badan ay kaaga muuqdaan oo markiiba qaar ay ku cajibiyaan. marka color ka mid ah ku cajibiyay mesela kan oo kale cajibiyay ama qaybtan blade baa la isku yiraahdaa waa dhowr color oo is qaadanaya. qaybtana bay cajibisay مثلا aan ka helay
kusii dhufo si uu kugu weynaado kalarada si fiican aad ugu kala aragto. Marka waa orange iyo light greenka iyo greenka kale xogaa ka hooseeya. Tusaale ahaan waxaa bay cajibiyey greenka hoose markaa ku dhufo wuxuu kuu soo saarayaa mouseka korkiisa markaad geyso wuxuu kuu soo saarayaa colorka numberkiisa ama rinjiga numberkiisa ama color hex code waxa loo yiraahdaa. Marka colorka numberkiisa haddaad hal mar ku dhufato wuxuu kuu soo saarayaa copied oo macnaheedu yahay colorkii waad koobiyeysa. Marka waxaad tagtaa code editorkeeni colorkii aad soo koobiyeysay right click C paste dheh ama control V and save dheh ka pagekeeni tag refresh dheh maxaa khaldan waxaa laga yaabaa waad aragteen sidoo kale kugu dhacdo aanu colorkii isbedeli waayo oo kuu soo bixi waayo. Marka code editorkeeni ku noqo colorkii aynu numberkiisa gelinay ama rinjiga numberkiisa aynu gelinay haddaad u fiirsato waxbaa ka maqan. waxaad ku dartaa calaamadda la yidhaahdo calaamaddaas raaci then save dheh pagekeeni tag refresh dheh waad aragtaa colorkii inuu isbedelay xoogaa colorkana ka qurux badan ishana uga fiican oo ka softisan. marka intaas waa sida loo bedelo backgroundka color website-kaaga oo HTML loogu bedelo. waxaan kaloo qaadan doonaa hadda aan ku xigsiin doonaa textka ama qoraalka sida wax looga bedelo. dhowr qaab baan u samayn doonaa. code editorkeeni tag halka u dambeysa waxaan rabaa inaan inoo diyaariyo qoraal aanu bedbedeli karno. marka hore ciwaan baan rabaa far waaweyn inaan geliyo waa soo qaadateen sida ciwaan far waaweyn loo geliyo. waxaan rabaa h1 inaan isticmaalo angle bracket then h1 qor markuu kuu soo saaro ku dhufo ka halka dhexdooda ciwaanka ayaan rabaa inaan geliyo ciwaan. waxaan ku soconaynaa tusaalayaashii hore ee ahaa waxbarashada ama wasaaradda waxbarashada. waxaan ka dhigay ciwaanka war degdega okay hoos u soo deg. marka waxaan ka dhigaa warka wasaaradda waxbarashada ayaa shaacisay in 12 arday fasalka 8aad ugu sareeyay fasalka 8aad ugu sareeyay in waxbarashada bilaash looga dhigi doono. fiicnaan ardada masaakiinta Soomaaliya iskuulada dhiganayaan dhamaantood bilaash looga wada dhigo waxbarashada bilaash looga dhigi doono. marka wasaaradda waxbarashada website-keedii waxay soo geliyeen warbixintan ama adaaba web developer wasaaradda u ah oo inta laga dalbaday inaad soo geliso wasaaradda ku tari soo geli warkaas. marka qoraalkan waxaan rabaa inaan waxyaabo badan ka bedelo si aan u qurxiyo ama dareenka ay xambaarsan yihiin aan u muujiyo. qoraalkan isku wada dareen maaha. tusaale ahaan 12 arday mid ka mid ah ama 12 arday marka ay akhrisanayaan intan qoraalkan website-ka wasaaradda marka ay ka akhrisanayaan hadalladan oo dhami isku micno uma sameynayaan ama isku dareen uma yeelanayaan. masalan kelmadda bilaash in bilaash looga dhigi doono kelmaddaas way uga duwan tahay hadallada kale oo dhan waa micno gaar ah oo ka ballaaran bay u sameynaysaa. waxbarashada bilaash lagaaga dhigay way ka weyn tahay kelmadaha kale oo dhan. marka waxaan rabaa kelmaddaas inaan muujiyo muhiimadda ay leedahay. waxaa jira waxa la isticmaalaa angle bracket in offer waxaad qortaa strong kelmadda horteeda tagaysa aad rabto inaad bedesho strong halka u dambeysana tag kelmadda soo xidh inta kale asaga kuugu daraya. marka control s dhis ama save pagekeeni tag refresh dheh. marka qoraalkeenu soo gelin pagekaaga markaad tagto waad arki kartaa kelmaddii bilaash inay isbedeshay oo noqotay far bold ah oo ka waaweyn ka muuqata fartii kale oo dhan taasoo micnaheedu yahay dareenka ay xabaarsan tahay ayaa ka weyn farta inteeda kale. code editorkeena ku noqo. marka strong haddaad isticmaasho waa qaab looga dhigo farta bold.
xilligan imika lagu jirana web developers ku badanka iyada isticmaalaan. waxaad kaloo samayn kartaa waxaad isticmaali kartaa kelmadda b la yidhaahdo aan masaxa inta hore strong b qor kelmadda b inta dambana ka masocayna b ka dhig inta lafteedu still waxaa ka dhigaysaa b pagekeeni tag refresh deh kelmaddu arki kartaa inay still bold tahay oo kelmaddii b aynu soo gelinay iyana ay bold ka dhigayso sorry waa aragtaan kelmaddii inay still bold tahay laakiin b-daas marka lama isticmaalo waxaa la isticmaalaa strong marka farqiga labada u dhexeeya waa intaas strong baa xoogaa marka browserku uu website-ka soo akhriyo kelmadda strong haddii ay la socoto wuxuu fahmayaa kelmaddani in muhiimad gaar ay xambaarsan tahay laakiin kelmadda b haddaad isticmaasho waa just qoraalkii unbay bold ka dhigaysaa marka farqiga u dhexeeya waa intaas code editorkeeni tag waxaan rabaa qoraaladii aynu soo gelinay mid ka mid a inaan ka dhigo italic far jiifjiifta runtii arino horta taas wax loo isticmaalo ma garanayo wax farta loo jiifinayo mala fartu hadday qaarkood ay daasho waa in la seexiya loo baahdaa masalan kelmadda waxbarashada ayaan rabaa inaan far jiifjiifto oo italica ka dhigo waxaa la isticmaalaa horteeda tag angle bracket kelmadda xarafka ay qor angle bracket halka u dambeysana tag angle bracket exclamation mark inta kalaasaa kuugu daraya markaas control s ama save deh pagekeeni tag refresh garee kelmadda waxbarashada haddaad si fiican ugu fiirsato waxaad arki kartaa in fartii kale ay ka duwan tahay oo ay italic ay noqoto jiifto taasina waa qaab farta italic looga dhigo waxa kaloo la sameeyaa oo la isticmaali karaa haddaad ayda masaxdo oo aad qorto em oo loo soo gaabiyey emphasize halka u dambeysana ayda ka masaxiyana em qor control s deh ama save pagekeena ku noqo refresh deh still waad arki kartaa iyana farti inay tahay italic waa laba qaab oo loo sameeyo haddii aad rabto italic inaad ka dhigto qoraal okay waxaan rajeynayaa intaa inaad fahanteen waxaan kale rabaa inaan idin tuso aynu qaadanaynaa masalan website-kaaga kelmad ama xaraf ama hadal baad si khaldan u gelisay hadalkii baad masaxday oo hadal kale aad ku bedeshay marka google marka qofku website-kaaga ku qoro google si uu si sax ugu soo bandhigo kelmaddii aad masaxday si uu u muujiyo ta aad ku bedeshana u muujiyo oo isbeddelkaa dhacay qofku uu u ogaado waa inaad google u fududaysaa waxaa la isticmaalaa markaa waxaan nidhi wasaaradda waxbarashada ayaa shaacisay in 11 arday ee fasalka 8aad ugu sarreeya in waxbarashadu bilaash u noqon looga dhigi doono marka wasaaradda waxbarashadu waxaa laga yaabaa khalad inay samaysay oo laga rabay halka 11 in 10 arday laga dhigo hal arday dheeraad ay ku dareen marka xaraf numberkii 11 ka rabtaan inaad ka masaxdo oo aad ku bedesho 10 waxaan ka horeysiinaynaa kelmadda del oo ah delete kelmadda 11 horteeda tag waxaad qortaa angle bracket del waa l keliya soo xidh halka u dambeysa tag angle bracket exclamation mark inta kalaasaa ku daraya marka waa deleted ayaa loo soo gaabiyey maxaa rabaa inaan ku bedelo waan fahmay intaas 11kii waan masaxay waxaa rabaa inaan ku bedelo inaan ka dhigo 10ka 11kii ahayd marka 10kan ka dhigayaa marka si aad u muujiso 10kan inay yihiin 10 in lagu bedelay 11kii la masaxay waxaa la isticmaalaa waxa loo yaqaana ins oo ah insert ama geli ama ku bedel waxaad tegaysaa angle bracket ins isaga kuu soo saaraya ku dhufo marka halkaa dhexdoodaad ku qoraysa waxaad ku bedelaysay oo ah 10ka marka safe garee aanu tagna pagekeenayno si aanu aragno bal waxa isbedela dhaca refresh deh aan idin calaamadiyo kelmaddii 11ka oo aynaan u baahnayn oo khalad ahayd calaamad dhexda ka maraynaya ama xariijin waxaa loo yaqaano strike oo macnaheedu yahay 11kaas waa la masaxay kelmaddii lagu bedelay ee 10ka ahaydna xariijin buu hoosta ka maraynaya oo underline waxa loo yaqaano oo iyana macnaheedu yahay tana lagu bedelay marka labadaasna waa la isticmaalaa kelmaddaad masaxday ama xaraf aad masaxday iyo xarafkii aad ku bedeshay waa laga yaabaa inaad tidhaahdo ma la wada masaxa un maxaa loo isticmaalayaa processkan oo dhan
kaba soo qaad haddii aad masaxday 12 oo shalayna qof uu akhrisanayay ama wiigii ka horreeyay uu qof akhristay ardayda waxbarashada bilaashka looga dhigay inay 12 yihiin haddii aad wada masaxdo waa inaad sharaxdaa tidhaahda khalad baa dhacay 12 ma ahayn ardaydu 10 buu ahaa khaladkaasaa naga dhacay laakiinse waxa ka fudud qaabkan uma baahna qoraal kale oo badan inaad qorto 12kaas waa la masaxay xariijintaas baa dhexda laga marinayaa 10kanaana lagu bedelay sidana ka sahlan oo ka fudud waxaan malaynaya intaa waa fahanteen maxaa inoo dhiman kale waxaan rabaa qoraalada qaar ka mid ah inaan line hoosta ka mariyo oo underline waxa loo yaqaano aan ku sameeyo masalan kelmadda la yidhaahdo wasaaradda ee qoraalkeena ka mid ugu horeysaan rabaa inaan line hoosta ka mariyo underline aan ka dhigo kelmadda horteeda tegaysa furo angle bracket dan waxaad qoraysaa xarafka letterka u oo loo soo gaabiya underline angle bracket halka u dambeysana tag angle bracket exclamation mark marka qorta saganta kale ku daraya marka control s ama save page-keeni tag refresh deh ka wasaaradda kelmadda wasaaradda waad aragtaan in underline ay tahay oo line hoosta aanu ka marinay iyadana sorry taasina waa qaab loo sameeya underline waxa kale aynu ku dareynaa qoraalada ama baaragraafyada aynu qornay ayaan rabaa qaar ka mid ah inaan highlight gareeyo ama yellow color aan mariyo oo highlight gareeyo masalan Microsoft Word hadday isticmaali jirteen waxa caana in waxyaabaha qaar pages qaar la highlight gareeyo ama xarfaha qaar fasalka 8aad hor kala rabaa inaan muujiyo oo highlight aan mariyo si attentionka qofka akhrisanaya uu markiiba isha ugu dhacdo marka fasalka hortiisa tag angle bracket waxaad qortaa mark waad garanaysaan luqad ahaan waa calaamad ama calaamadin halka u dambeysana tag angle bracket forward slash hadaad qorto isaga ku daraya inta kale sorry marka save deh page-keeni tag refresh deh kelmadda fasalka hadda aragtaan iyana wuxuu mariyay highlight oo yellow ah iyana baahidaas waa loo baahdaa marmar marka inaad u baahataa laga yaabaa qaabkaasna waa qaab loo highlight garayo xarfaha qaar okay intaana waa fahanteen baan u malaynayaa waxaan wax yar ka hor sheegnay waxa loo yaqaana underline oo xarfaha qaar ama kelmadaha qaar inaad xariijin hoosta ka mariso waa laga yaabaa inaad isweydiinaysaa tiraahdo xariijin dheer oo gees to gees inaan sameeyo haddii aan rabo qaabkan u geliyaa masalan qoraalka ama casharkiina maanta wuxuu ku bilaabmay ciwaanka ugu sarreeya oo ah war degdeg ah halkaasuu ku bilaabmay marka wixii ka horreeya ka sarreeyay ayaan rabaa inaan line kala dhex mariyaba oo ay kala socmaan waxaan tegayaa halkan rabay inaan lineka geliyo linkana waa underline maaha waa gees to gees waxaad qortaa angle bracket then hr oo horizontal ah waa line horizontal ah oo gees ilaa gees u soconaya markuu kuu soo saaro ku dhufo waa laga yaabaa inaad isweydiinayso tira hr waa opening tag keliyu leeyahay closing tag mee wixii lagu soo xidhayay marka closing tag ma laha waxyaabaha cankani maadaama dhexdooda aan qoraal la gelinayn control s taabo ama save page-keeni tag refresh deh iyana waa aragtaan linekaasuu geliyey war degdega intii ka sarreysay oo qoraalkii ka sarreeyey lineka uu kala dhex geliyey linekaasaan idin calaamadiyo lineka kalarkiisa waad bedeli kartaa waxyaabaha cankani css bay ku fiican yihiin markaynu qaadanaa si fiican u baran doontaan waxaan malaynayaa casharkan maanta idiin soo diyaariyey intaasuu ku dhan yahay waxaana rajaynayaa videogani inuu noqdo aan kusoo gabagabayno koorsadeeni html-ka ahayd ee noo soo socotay waa laga yaabaa waxyaaba yareer oo aynan koorsada kusoo qaadan inay kaa hor yimaadaan waxyaabaha aan ka booday waxay u badan yihin waxyaaba aan islahaa waa optional ama waxyaaba aan islahaa css bay ku qurux badan yihiin html iyo confuse garaynin marka waxyaaba cusub hadday kaa hor yimaadaan qaabkaasina uga boodnay runtii web development ama si guudba software development technologygu aad buu isu badbedelaa hase yeeshee haddii baseka uu kuu dhisan yahay uu basekaagu uu dhisan yahay way kuu fududahay inaad la jaan qaaddo wax kastoo cusuba soo baxa marka insha allah haddii wax cusub aad aragto ha ka werwerin isku day markiiba inaad akhrisato oo aad fahanto koorsadan halkaasaan kusoo gabagabeynayna html insha allah waxaanu bilaabi doonaa css haddii ilaah yidhaahdo
channelku sidan mar walba ku celcelino weli wuu cusub yahay inta aynu ka helayno dad badan oo daneynaya inay software developers ama web developers ay noqdaan insha Allah social media ku share garee haddii aad nagu cusub tahayna aad baad mahadsan tahay ha ilaawin inaad subscribe garayso wixii aad fahmi weydana comment-ka igu soo qor insha Allah aad baan idin salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.